Assalaamu calaykum daawade ilbaxnimada waxaynu odhan karnaa waa raadinta wanaagga ama waa gaadhista wax kasta oo wanaagsan oo ibni aadamku u arko inuu sarreeyo sida cilmiga, soo bandhigista waxaan hore u jirin, wax ku sii daridda wax hore u jiray, wanaajinta akhlaaqda, xishoodka iyo ilaalinta qiyamka. Ilbaxnimadu waa waxa kala sooca hab-nololeedka aadamaha iyo xayawaanka. Tusaale, in aynu dharka ka xidhanno dhaxanta oo aynaan hog ka gelin ama ciidda isku aasin sida xayawaanada qaar. Ilbaxnimada ayaa saldhig u ah aqoonta keentay in aynu isticmaalno diyaarado isaga goosha daafaha caalamka. Ilbaxnimada ayaa dhalisay Ibn Khaldun kitaabkiisa Muqaddimada qaybta 1 bogga 309 waxa uu leeyahay xadaaradu waa nidaam bulsheed bini'aadamka ka kaalmeeya inuu kor u qaado wax soo saarkiisa aqooneed, waxaanay koobsataa 4 shay oo kala ah ilaha dhaqaale, hab-nololeedka amba hab-maamulka siyaasadeed, hidaha iyo dhaqanka, cilmiga iyo farshaxanka. Haddaba daawade, ilbaxnimada macnaheedu ma aha inaad si khaldan u fahanto horumarka, macnihiisuna ma aha inaad dhaqankaagii iyo diintaadii ka tagto ee waa inaad wixii aad haysatay aad wax ku sii darsato ama sii hagaajisato haddayba wax kaa khaldanaayeen ama aad saxato. Wassalaamu calaykum.